magaalada muqdisho wariyaha BBC-da maxamed ibraahim macalimo ayaa warbixintan soo socota waxa uu ka diyaariyey cumar cabdirashiid iyo magacaabistiisii ra'iisul wasaaraha iyo aqoontiisa iyo kaalintiisa siyaasadda ee Soomaaliya wuxuuna ku bilaabay cumar cabdirashiid cali sharmaarke inta aan maanta loo magacaabin ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka isagoo ahaa safiirkii ugu horeeyay muddo 20 sano ah kadib Soomaaliya u fadhiista dalka Mareykanka waxaana warqadaha aqoonsiga ka guddoomay madaxweyne Barack Obama 14 Luulyo 2014 ra'iisul wasaare sharmaarke waxa uu dhashay 18 Juun 1960 maalmo ka hor markii Soomaaliya xorriyadda ay qaadatay cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu ka soo jeedaa qoys caana aabihiis cabdirashiid cali sharmaarke ayaa waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay Soomaaliya markii xorriyadda la qaatay kadibna waxa uu noqday madaxweynaha Soomaaliya 1967 waxaase la dilay isaga oo xilka haya 15 Oktoobar 1969 cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa waxbarashada uu ka bilaabay magaalada Muqdisho taas uu ka gaaray heer jaamacadeed waxaana uu ka qalin jabiyay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed ee Gaheer isaga oo bartay cilmiga dhaqaalaha waxbarashadiisa sare waxa uu ku qaatay dalka Canada waxaana uu ka baxay Carleton University ee magaalada Ottawa halkaas oo uu ka qaatay cilmiga siyaasadda shahaadada BA kadibna MA ayuu ku qaatay siyaasadda dhaqaalaha dhanka waayo-aragnimadiisa shaqo marka la eego xirfadiisii shaqo ee ugu horeysay waxa uu ka qabtay bangigii Soomaaliya iyo shirkadii Coca-Cola kadibna waxa uu u wareegay hay'adaha aan dawliga ahayn sida Center for Peace and Development Initiatives ee dalka Canada sharmaarke waxa uu sanadkii 2000 ka shaqo bilaabay qaramada midoobay isagoo ka shaqeeyay dalalka Sri Lanka, Sierra Leone iyo Suudaan halkaas oo ka ahaa la taliye siyaasadeed sidoo kale waxa la taliye siyaasadeed uu u noqday madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed 13 bishii February sanadkii 2009 ayaa madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu kaga dhawaaqay dalka Djibouti in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu doortay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke baarlamaanka Soomaaliya oo markaa fadhigiisu ahaa dalka Djibouti tiradiisuna ay gaaraysay 550 xildhibaan ayaa ku ansixiyay cod aqlabiyada bishii May 2010 ayaa waxaa soo ifbaxay khilaaf u dhaxeeyay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke waxa sidoo kale khilaafkaasi barbar socday mid la doonayay in xilka laga qaado afayeenkii baarlamaanka ee xilligaasi Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe Sheekh Aadan Madoobe ayaa 16 May 2010 waxa uu ku dhawaaqay in xukuumaddii ra'iisul wasaare Sharmaarke ay dhacday madaxweynahana laga doonayo inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub arrintaasi ayaa waxaa si weyn uga biyadiiday ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke si kastaba ahaatee waxa khilaafku soo jiitamaba 21 Sebtembar 2010 ayaa waxa iscasilay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke isagoo oo maalintaasi sheegay inuu u tanaasulay danta qaranka runtii waa maalin noodeed maalin taariikh ah waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo baarlamaanka intaba yani kalsoonideena siiyeen sanad iyo 7 bilood ka hor iyo runtii wada shaqayntii ay nala shaqeeyeen intii aan anaga xukuumad ahaan soo jirnay waxaan yani markaan tashi badan sameeyay iyo xaaladda waddanka taagan yahay caqabadii siyaasadeed taagnayd waxaan garanay runtii inaan marka ka haatana aan tanaasul sameeyno maslaxadda eegno yani qaranka iyo dadka iyo dalka dartiis aanu u tanaasulno booskan haddii la yiraahdo aan casilaadeena keenno madaxweynaha u keenno aan u rajayno guul xukuumadda imaanaysa Sharmaarke waa xaas leh 3 caruur dadka yaqaana waxa ay ku tilmaamaan mas'uul dadka dhageysta oo ixtiraam badan Soomaalinimadan ay ku dheer tahay laakiin dadka siyaasadiisa naqdiya waxa ay ku tilmaamaan nin warkiisa aan waadix ahayn oo hadalka ruuga isla markaana nugul iyaga oo tusaale u soo qaata in xukuumaddiisu ay ahayd tii furtay muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya inkastoo taasi laftiisa uu marar badan difaacay maxamed ibraahim macalimo BBC Muqdisho macallin aad buu mahadsan yahay haddaba dhageystayaasha BBC-da ayaa Facebook waxay ka soo buuxiyeen aaraa iyo fikrado kala duwan oo ay ka qabaan ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay مثلا عبد الرشيد عبد الجامع waxa uu yiri anoo ku hadlayay buu yiri afka da'yarta iyo dadka aan waxba laga dhageysan waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha cusub waa inuu noqdaa mid u dhagan nugul dadka aqliga saaxiibka u ah عبد الرشيد عبد عمرنا waxa uu yiri horaa loo soo tijaabiyay ra'iisul wasaaraha cusub laakiin Maxamed Saalax Maxamed ayaa waxa uu yiri waan soo dhaweynaya ra'iisul wasaaraha cusub waxaan u rajaynayaa in isaga iyo madaxweynuhu aysan isqaban buu yiri sidii kuwii ka horeeyay cilmi kulan ayaa waxa uu leeyahay aad ayaan uga xumahay laakiinse waa in la taageeraa ugu dambeyntii
maxamed axmed bulaale ayaa isna waxa uu leeyahay hambalyo iyo soo dhoweyn ra-iisul wasaaraha cusub waxaana uu ilaahay uga baryey in uu la garab galo hawsha culus ee loo dhiibay iyo wakhtiga adag ee soomaaliya ay ku jirto kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha laanta af soomaaliga ee b b c da oo ka soo ra'yi dhibanayay ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soomaaliya uu u magacaabay cumar cabdirashiid halkani waa london